Maxaa ka cusub kulan ciyaareedka u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Horseed Sports Club oo kulanka kama dambaysta ah ee tartanka Jannada Daa'uud oo maalinta berito la ciyaarayo. Kulan aad u xiiso badan oo ay markaasi wada ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta Horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club ayaa iskugu soo haray kama dambaysta tartanka kubadda cagta ee Jannada Daa'uud sanadkan 2026. Labada kooxood ayaa waxa ay markaasi ku kala bixiyeen dadaallo iyo sidoo kale juhdi aad u fara badan oo koox walba ay markaasi daneyneyso in sanadkan isbeddel weyn ay ku sameyso tartamada oo idil. Kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club haddii aan ku hormarno, sanadkan waxa ay markaasi ku dadaashay sidii ay ku soo gaari lahayd kama dambaysta tartanka. Hadda qorshaheeda ay wajihi doonto ayaa waxa ay noqon doontaa sidii ay uga hortagi lahayd kooxda kubadda cagta ee Horseed oo ay markaasi koobkan ka farmaroojisan lahayd. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Horseed ayaa iyadana markaasi sameysay isbeddel aad u muuqda sanadkan. Waxa ay markaasi dooneysaa in waayo cusub ay furto si ay ugu guuleysato tartanka koobka Jannada Daa'uud. Kooxda Horseed ayaa ah kooxda martigelisa ee tartankan, waxaana loogu magac daray Allaha u naxariistee taliyihii xoogga qaranka Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee markaasi lagu magacaabo Jannada Daa'uud oo markaasi si rasmi ah koobkan markii la dhigay sanadii 1972 waxaa si rasmi ah ugu guuleysatay isla kooxdan Horseed ee caawa iyo maalin ayaana qaaday markii ugu horeysay. Sidoo kale horey ayay koobabkan oo kale u qaaday. Kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club iyadana waxay ka mid ahayd kooxaha sida weyn ugu soo dhex muuqda tartankan, waxa ayna horey ugu guuleysatay dhowr mar tartanka koobka Jannada Daa'uud oo markaasi iyadana magac iyo maamuus ku leedahay tartanka kubadda cagta ee Jannada Daa'uud. Marka laga soo tago kulamada labadan kooxood, waxyaabaha kale ugu waaweyn ee laga soo diiwaangeliyay ayaa waxa uu noqon doonaa labada kooxood waxa ay markaasi isku diyaariyeen kulankan oo dhammaan ciyaartooydooda waxa ay soo mareen tijaabooyin iyo tababaro kala gedisan si halkaasi ay markaa guul ugu keeni karaan tartanka kubadda cagta ee Jannada Daa'uud ee labada kooxood ee markaasi Horseed iyo Muqdisho City. Dhanka kale, kulankan beri waxa uu ka dhici doonaa garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee dhaca degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Xogta kulankan taageerayaasha maalinta berito u soo daawasho tagi doona ayay saameyn gooni ah ku yeelan kartaa. Waxaa markaasi laga dhigay khidmo ama lacag guna ah oo lagu gali doono garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho kulan ciyaareedka u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Muqdisho iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Horseed ee caawa iyo maalin. Garoonka ayaa qaybihiisa kala duwan markaasi lagu kala cayimay lacago kala duwan oo markaasi ugu horeyn gelitaanka garoonka qaybta markaasi kala duwan waxaa markaasi lagu gali doonaa $1 oo keliya. Qaybta dhexe markaasi iyadana waxaa lagu gali doonaa qofka raba inuu fadhiisto khidmad gaaraysa $3. Qaybta ugu dambeysa markaasi towerka sare markaasi VIP-da loo yaqaano ayaa iyadana lagu gali doonaa lacag gaaraysa ilaa iyo $5, waxayna saameyn weyn ku yeelan kartaa taageerayaasha daneynaya kulankan in ay markaasi u daawasho tagaan. Waxa uu markaasi noqon doonaa kulan aad u weyn oo la wada sugi doono. Sidoo kale, haddii dhanka kale loo fiiriyo macaashka ka soo galaya kubadda cagta, waxaa ka faa'iidi doona labada kooxood iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, waxaana la filayaa in lagu hormariyo dakhligaasi ka soo xarooda garoonka ciyaarista kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya. Walow markaasi suurtagal ahayn in kulankan uu noqon doono kulan si weyn dadka ugu soo gaari doona garoonka, waxa uu ku noqon doonaa caqabad aad u weyn oo markaasi aysan awoodin
dhalinyarada ee u soo daawashatay doona kulan ciyaareedkan ee markaasi u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Horseed iyo Muqdisho. Tartankan uu yahay tartanka Jano Daawud